بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كسر دوادا حديث كيشان يلباتنات أو تلقلنا بش بركيسا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. xadiidkan maanta waxaan uga warrami doonaa ictikaafka gaar ahaan guud ahaan si guud ictikaafkan ka warrami doonaa gaar ahaan haddana ictikaafka tobanka dambe la ictikaafo ee ramadaanka, haddana ictikaafkii inuu ku ansaxayo masaajidii. ictikaafku horta muhim weeye, qofka muuminka ahi markastana inuu ictikaafo ayaa loo baahan yahay. ictikaafku waxa weeye nagaadi masjidkii lagu nagaado oo maaragtay lagu xasilo waqti yar ama waqti dheer ayadoon la xasilino qofku masjidka uu dhex marayo ictikaaf lama yiraahdo. waa inuu ku xasilaa nagaadi weeye ictikaafku. waxaana shardiya inuu niyeysto qofku waa cibaado, niyadii ayuu kusoo ansaxayaa. ictikaafku marka waqti kasta waa sunno oo sanadka dhan ka mida. ramadaankuu sii adag yahay, tobanka dambuuna sii adag yahay litalabi leylati alqadr, si laylatulqadrigii loo raadiyo. waxaa shardiya qofka ictikaafaya inuu yahay muslim caqli leh, ka khaali ah xadadkii akbarka ahaa. maxaa yeeley ictikaafku masjid ayuu ku ansaxaa oo arkaantiisa waxaa ka mid a inuu nagaado ruuxu, uu niyeysto masjidna uu ku ansaxo ictikaafo, uuna yahay qof muslima. marka masjidka waxaan u leenahay sidaasaa ictikaafku ku ansaxaa. laakiin meelaha kale ee mathalan ba yurub iyo ku badan ama maaragtay loo diyaariyey madaaristii iyo meelaha loogu talagalay in lagu cibaadaysto ee aan masaajida ahayn, ayada ictikaaf maahan. waxaa lagu sameynaya waa cibaado kaleo waa ku cibaadaysanaysaa, khayrkaagii oo kaleo waad helaysaa, laakiin ictikaafku masjid meel ah ayuu ku ansaxaa. marka ictikaafka qofkii markii uu masjidka ku ictikaafo waa inuu qofkaasi yahay qof khaali ka ah xadadkii weynaayo, gabadhii ay caadadii iyo janaabadii iyo nifaaskii iyo waxyaalihii waaweynaa waa inuu qofku ka maran yahay, waa shardi. inuu ictikaafku waqti soon yahana waa sii fadli badan tahay. hadduusa soo marayna markasta waa ictikaafaya. waxaana sunno ah qofku marka uu masjidka soo galo inuu ictikaaf uu niyeysto. maxaa yeele daqiiqadahaas aad joogtid ajara kuu soconayo. qofkii masjidka iska dhex fadhiyey iyo qofkii ictikaafayay niyada ayaa kala saaraya. haddii qofku uu niyeysto, hadduu nadro qofku wuxuu nadray masjid hebel inuu ku ictikaafo, hadduu mathalan ba nadar ku galo masjidkii xaramka inuu ku ictikaafo, meel kale kuma ictikaafi karo. haddii uu nadar ku galo masjidkii rasuulka ee madiine inuu ku ictikaafana, macnaha kii xaramka markii uu ku nadray waa inuu horta kii asagii kusoo ictikaafa. ictikaafkii nadarkaasi kale ogama dhacayo, maxaa yeele masjid ka fadli badan ma jiro. haddii masjidka rasuulka uu isku nadray inuu ku ictikaafana, masjidka rasuulku ku ictikaafi karaa. kan xaramkuna waa kasii fadli badan yaho waa ka guda. haddii uu nadro masjidul aqsa inuu ku ictikaafo, waxa weeye masjidul aqsa uu ku ictikaafi karaa. kan xaramka iyo masjidkii rasuulkuna way kasii fadli badan yihiinoo waa uu ka guda. laakiin masjid kale haddii uu isku nadro inuu ku ictikaafo oo yidhaahdo ilaahay wuxuu igu leeyahay masjid hebel inaan ku ictikaafo, ictikaafkaasi waajib maahan, masjidkaas waajib kuma ahan. masjidkaa rabtid ayaa tegi kartaa, laakiin saddexdaas ayaga waajibay ahaayeen haddaa isku nadartid. sidaa darteeda nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam: laa tushaddu rixaalu ilaa ilaa halaathati masaajida. rarka looma adkeeyo oo lama aado 3 masjid waxaan ahayn marka isku nadartid ictikaafkoodii: almasjid alxaraam, masjidkii xurmada lahaa, wa masjid rasuuli sala allahu calayhi wasalam, iyo masjidka rasuulka, iyo wa masjid alaqsa, masjid alaqsa. saddexdaas ictikaafkii aad isku nadartahay aadis wey. laakiin masjid kale haddii aad isku nadartid inaad ku ictikaaftid waajib kuguma ahan. masjidka rabtaa tegi kartaa. maxaa yeele masaajida kale daata ahaantooda iyo nafsadooda ma kala fadli badna. waxay ku kala fadli bataan jamaaca badida iyo khayrka lagu hayo ku kala fadli bataan, laakiin ayaga naftooda ma kala fadli badna. ictikaafka waxyaalaha buriya waxaa ka mid a hadduu qofku ictikaaf niyeysto, hadduu jimaac sameeyo ama shahwa ka timaado ictikaafku waa ka burayaa.
waxa weeye oo maalan ba ictikaaf inuu uu watay ictikaafki u wata hadduu gurigiisa inta u baxo uu haweentii soo jimaaco ictikaafki waa ka buraya waa soo celin marka laakiin masjidka dhexdiisa maba banaanaba inuu wax ku jimaaco ma banaana asagoo ictikaafaya lama ogola inuu masjidka ku jimaaco walaa tubaashiruuhuna wa antum caakifuuna fi lmasaajid ilaahay waa kale oo dumarkii hala mubaasharoonina adinkoo masaajida ku ictikaafaya qofku haddii uu isku nadro in uu ictikaaf sameeyo muddo israacraacsan maalan ba wuxuu nadar ku galay inuu 7 beri ictikaafo uu nadar ku galo oo iska xiriirta haddii uu baxo cunitaankii iyo hadduu u baxo ama cabitaan uu u baxo uusan masjidka ku dhex cabi karin ama xaaje gudasho uu u baxo ama xanuun uu u baxo ama gabadhii caado ay inta ku dhacda ay u baxdo ictikaafkii kama burayo laakiin haddii uu u baxo maalan qof soo booqasho ama salaatuljanaazo ama jumcadii ictikaafki waa buraya waa inuu dib kasoo bilaaba maadaama uu isku nadray ictikaafkaas yacni xiriir 7 beriyo xiriira uu isku nadray laakiin haddii uu wax kaloo laabudda ah oo aan laga maarmin uu u baxo ee waddadii uu isagoo soo socdo qof mariida xaalkiisa u weydiiyo yiri saa yahay waxa weeye dhib ma leh waa hadduusan ku leexan ictikaafkiisi kama burayo marka ictikaafkii addoonkii iyo haweenaydii iyo hadday ictikaafayaan waa in ay ninkeedii idan ay ka haysataa marka 10 ictikaafkiisi guudan xukumkiisi u sheegnay laakiin 10ka dambe in la ictikaafo ayaa sunno aad u ah oo usii muhiima waxa weeye nabiguna calayhi salaatu wasalaam 10kaas dambe aad ayuu u ictikaafi jiray sida axaadiidta saxiixa kusoo aroortay xadiidka aan ku bilownay wuxuu leeyahay cabdullaahi bin cumar nabigu wuxuu ictikaafi jiray 10ka dambe ramadaanka ka mid ah yacni 10kaas waa badi jiray riwaayo kale caaisha warinaysa xadiid kale caaisha warinaysa waxay leedahay ana الnabiya sala allahu calayhi wasalam kaana yactakifu 10 alawaakhir min ramadaan nabigu 10ka dambe oo ramadaanka ka mid uu ictikaafi jiray xataa tawafaahu allah ilaa ilaahay uu oofsaday huma اctakafa aswaajuhu min bacdihi ka bacdi nabiga xaasaskiisa ayaa ictikaafay oo sii wada ictikaafkii ka sii waday halkaas ictikaafku marka 10ka dambe ee ramadaanka aad ayuu u muhiim yahay in aan ku dadaalno oo ajarkaas aan shaqaysano oo laylatulqadrigi aan raadino u fiirso ictikaafka maxaan u samaynaynaa masjidka markaa ku ictikaafsan tahay adduunyadii oo dhan aad ka xarootay istikfaaraad badinaysaa towbadaad badinaysaa qur-aan akhriskaa badinaysaa ilaahay u laabashadiisaa badinaysaa waxa weeye qalbigaagaa nadiifoobaya indhahaagaa ilaashan markaas waxaa kuu suurtoobaysa inaad si buuxdoo dhammaystiran ilaahay aada ugu laabatid aada markaasna aada leyladii lagu haleeshiyo ayaa kuu suurtoobaysa nabiguna calayhi salaatu wasalaam bishaan aada ayuu ramadaan aada u ictikaafi jiray gaar ahaan 10ka dambena waa ictikaafi jiray nabiguna calayhi salaatu wasalaam ictikaafka xataa habeenadii leylatulqadriga la tusiyey waxaa ka mid ahaa habeenka 21 oo uu nabigu subaxdii uu ku tukanayay masjidka roob ku da-ay uu dhoobadii ku sujuudayay isagoo 10kii dhexe soo ictikaafay waa tii la tusay inuu habeenkaa soo socdo habeen noocaasa inuu arki doono habeenkii 21 haddana markuu ictikaafay uu habeenkii leylatulqadrigii la tusiyey oo roobkii uu sidaas ku da-ay ee maaragtay asxaabtii halkaas ku bishaaraysteen marka walaalayaal ictikaafka aan badino gaar ahaan 10ka dambe oo ramadaanka aan badino gaar ahaan tirsiga isdheer aan badino 10ka dambe aan ka faa'iidaysano ilaahay hana waafajiyo ilaahay hana hagaajiyo wabilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh